gabadhu waxay iska siibtay jaakadeedii dabadeedna si deggan ayay dhulka ugu jiifsatay. wax yar kadib kulaylka daran ee qoraxdu wuxuu qalajiyey qoyaankii jidhkeeda. si tartiib ah ayay isu beddeshay maqaar u eg harag qalalan. markaas ayuu aabbihii u yimid wuuna duubay si uu aabbuhu sidaas wuxuu u sameeyey si uu dhab ahaantii u badbaadiyo gabadhiisa. waxaa la ogaaday in 10 daqiiqo ka hor qoraxdu si xawli ah ugu soo dhowaatay meerahan. iyagoo wajahaya kulaylka daran waxay ku qasbanaadeen inay helaan meel ay ku gabadaan. laakiin hooskii ayaa sii yaraanayay wuxuuna noqday mid aan qaadi karin. aabbuhu wuxuu gabadhiisa ka saaray hoygii. gabadhu markiiba way fahantay waxa aabbaheed ula waxay iska siibtay jaakadeedii dabadeedna waxay ku jiifsatay dhulkii gubanayay. qoyaankii jidhkeeda ayaa uumi baxay waxayna si dhaqso ah isu beddeshay maqaar qalalan oo u eg harag. ninkii wuxuu qaaday gabadhii wuxuuna u dhiibay hooyadeed isagoo u sheegay in marka wakhtiga saxda ah la gaaro haddii biyo lagu qooyo ay gabadhu dib u soo noolaan doonto. 12 sano kadib heerkulka meerahan ugu dambayn wuxuu gaaray heer ay bini'aadamku ku noolaan karaan. hooyadii waxay maqaar u ekeydii gabadha ku riday biyo. ilbiriqsigii xigay marka biyuhu qoyaanka siiyeen maqaarkii wuu bilaabay inuu balaarto jidhkeediina si tartiib ah ayuu ugu soo noqday sidii hore. gabadhu si guul leh ayay dib ugu soo noolaatay. wax yar kadib aabbihii ayaa isaguna soo laabtay qoyskiina way midoobeen mar kale. laakiin ka hor intaan hadda wakhti u helin wax kale oo cabsi leh ayaa mar kale dhacay sababtoo ah qoraxdii ayaa kasii fogaanaysay meerahan. taas macnaheedu wuxuu ahaa in meerahan uu geli doono jiilaal aad u qabow. dadkii mar kale cabsi ayay galeen.